Assalaamu calaykum. Xiriirka kala dhexeeya bulshada inteeda kale waa wax aad uga muhiim nolosha qofka. Waxaan hoos kugu soo gudbinayaa 3 talo oo hagaajinaysa xiriirka aad la leedahay bulshada inteeda kale. Waxaa hubaal ah haddaad 3dan dabci aad ku tarbiyaysid naftaada inay hagaagayso xiriirka aad la leedahay bulshada inteeda kale. Had iyo jeer raadi qofka meesha uu ku fiican yahay, si walba oo qof kale ay wax kala dhexeeyaan. mar walba xooga saar meesha uu ku fiican yahay qofkaas. Dad badan ayaa raacraaca meesha qof kale uu ku leeto. Habdhaqankan wuxuu ku nacsiinayaa qofka, kadibna kugu hogaaminayaa inaad qofka isnacdaan iyo in wada sheekaysigiinu uu ku dambeeyo muran. Saas beddelkeed haddaad kala sheekaysato qofka dhinaca uu ku fiican yahay oo uu jecel yahay inuu ka sheekeeyo, waxaad ku dheeraanaysaan sheekadiina, waxyaabo kalena waad isku soo qaadaysiin. Qofka kula jooga mar walba si niyad buuxda. Waxa ugu xun ee aad ku sameyn karto qof kula jooga ayaa ah inaad iska dhagatirto ama aadan baniyad siin. Markaad la kulanto qof saaxiibka ah ama waalidka ama qof ay wax kala dhexeeyaan, si niyad buuxda dhagtana u raarici. Adigoo qof meel la jooga ama la cuntaynaya ayaa wicitaan ku soo galay, kadibna gacanta gelisay jeebka, waadna ka jawaabtay wicitaankii. Haddaad saan samayso, waxay ka dhigan tahay oo la mid tahay in qofka ku soo wacaya uu kala muhiimsan yahay qofka kula jooga. Ma malayn kartid sida qofku u jecel yahay inaad dhagaysato, dhagtana u raariciso hadalkiisa. Dadku waa inay kaaga tagaan farxad ka badan tay kugu yimaadeen. Waa inaad noqotaa qofka ay dadku la kulankiisu ku farxaan markay waqti la qaataan. Sidee ku noqon kartaa qofka noocan ah oo markay dadku la kulmaan ay ku farxaan? Mar walba u sheeg inta aad jeceshahay, in badan u mahadceli iyo sida aad ugu faraxsan tahay inaad wada kulantaan.